soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Hot Dice oo kamid ah geemamka ku jira application-ka geemkan guushiisa iyo guuldaraduba waxay ku xiran tahay qofka marka ciyaaraya qaab ciyaareedka uu la yimaado iyo xirfadda uu geemkan ku ciyaarayo waxaan muuqaalkan kuula wadaagi doonaa tricks iyo qiyaanooyin kuwa oo qof walba uu ka sameyn karo lacag fara badan marka hadii ay tahay daawashada kugu wareysay channelka waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadana aad la wadaagto si iyagana waxa uga faa'iidaan muuqaalada halkan ku soo gudbino hadii aan ku soo laabano mowduuceena geemkan aan ka hadli doono waxa ku qoran Hot Dice waxa uu ku jira application-ka waliba qaybta gameska waana geemkan ku muuqanaya marka aad ku dhufato waxa ku soo bixi doona dashboard-kan dabcan markuu dashboard-kan ku soo baxo waxa u baahan tahay marka hore intaad geemka galin ama aad lacag dhigan inaad geemkan fahanto geemka inaad fahanto hadii aad rabtid waxa u baahan tahay inaad halkan taabato kadibna hadii aad fahmayso ingiriiska halkan ku qoran inaad akhriso hadii aadan fahmayna micnaha guud ee geemkan uu ka hadlayo ayaa waxay tahay in geemkan marka aad lacagta dhigto kadib waxa ku soo bixi doona hadirtan waxa inoo soo baxay labada tiro oo kala ah laba laanduu dabcan waxa ku kala qoran 1 iyo 2 labadan tiro ama labadan laanduu ee ku kala qoran halkan hoose kaliya waxa inoo banaan laba meelood oo aan taabsan karno dabcan waxa jira laba meelood oo kale oo aanan taaban karin hadaba labadan meelood ee aan taaban karno maxay kala yihiin qaybta koowaad ee over ay ku qoran tahay dabcan waa uu ka badan karaa ay u dhigan tahay halka qaybta hoose ee underka or equal to ay ku qoran tahay ama waa uu ka yaraan karaa ama waa uu la mid noqon karaa ay ka micno tahay dabcan mar walba waxa lagu soo bandhigi doonaa laba laanduu ee lagu soo bandhigi doonaa waxa ku kala qornaan doona tirooyinka ku kala qoran halka hoose waxa ku banaanaan doona laba option oo kaliya geemkan sababta uga hadleen ayaana ah in kaliya uu yahay geemka labada option ah inta badan geemka labada option waa geemka ugu faa'iidada badan hadii aan mowduuceena ku soo laabto geemkan hadda laanduugan inoo yaala meesha hadii aan over taabano uu yimaado number kan ka badan fursad kale oo waxa naloo soo bandhigi doona micnaheedu yahay numberka kale ee hadana soo bixi doona oo aan ku saadaalin doono dabcan waa 2 mar ama 3 mar oo mar walba lagu saleyn doono tirooyinka ku imaanaya hadeertan tiradii markii aad taabtay waa laga gudbo option-kan x2 markii laga gudbo oo kaliya ayaan lacagta qaadan karaa hadii aan saxo hadii aan sixi waayana waa laga laaban doona hadeertan waxaan leeyahay halkan hoose waxa ku qoran numberkan waa uu ka badan karaa ama waa uu la siman karaa ayaa mar kala banaan halkan waxa baran under oo waa uu ka yaraan karaa oo micnaheedu ay tahay soo marka hadii aan under taabano oo numberkan 11 ka ah ama 11 ka number ka yar uu yimaado inagu lacagta waa qaadan doona laakiin hadii maxuu ahayd numberkan over or equal aan taabano numberkan uu noqdo number maxuu ahayd kan ka yar anaga waa khasari doona marka hadii labada number mid ka rabta taabsan kartaa soo aan waxa taabanaa qaybta underka hadeertan waxa yimaaday numberka yar soo sida waxa ku qaadanaysa lacag faa'iido ah lambarka 11 waxaan taabanay waxa imaan doona numberka yar waxaan sida ku qaatay tiro 5 ayaa soo baxday waxaan sida ku qaatay lacagteeda laba jibaarkeeda soo marka waxa filan in la duugan fahantay ama ciyaarta ina fahantay ciyaar walba oo soo bixi doonta waxa lagu soo bandhigi doonaa laba option oo kaliya halka ciyaartu ay ka kooban tahay 4 option afarta option ay ciyaartu ka kooban tahay adi lagu ma soo bandhigi doono oo kaliya ciyaar walba waxa lagu soo bandhigi doonaa laba option labada option waxa lagu saleyn doonaa mar walba tirada meesha ku taala hadeertan waxa inoo soo baxay number 5 ah numberka 5 ah tiradan overka ah micnaheedu waxay tahay waa ay ka badan kartaa halka under or equal ay ku qoran tahay ay tahay micnaheedu waa ay maxuu ahayd ka yaraan kartaa ama waa ay ekaan kartaa soo marka number walbo aad taabato ayaa lagu saleyn doonaa tirada soo bixi doonta anaga hadeertan waxaan taabanay waa ay la mid noqon kartaa ama waa ay ka yaraan kartaa isla tiradii ayaa soo baxday hadeertan hadana waxa lagu siinayaa option kale oo ah ama waa ay ka badan kartaa ama waa ay la ekaan kartaa ama muxuu ahayta way ka yaraan kartaa iyo muxuu ahayta way ka yaraan kartaa iyo way la siman kartaa waa qaybtan hoose halka hoose under or equal to ay ku qoran tahay halka way ka badan taana ay ku qoran tahay overka soo marka numberkan hadii aad taabato overka ah tiradana tira ka badan ay imaato already lacagtaada sidaas ku qaadanaysa hadii under or equal ay ku qoran tahay qaybta kale aad taabatana numberkan number la eg ama ka yar uu yimaadana sida ayaa lacagtaada ku qaadanaysa
waxaan rajeynaa inaad fahamtay haddaba labadan number midka aad taabanayso qof walba number ku taabsanayo isaga ay jirtaa laakiin adin numberka aad taabsanayso mar walba waxa lagu saleeyaa ciyaarihii aad hore u soo ciyaartay hadii gameka lacag badan uu ku yaalo ana hadeerta muuqaalkan waxa kaliya aan rabaa in aan dadku wax ku fahansiiyo muhiimna ma aha lacagta dhigayo oo waa lacag iska yar soo marka over iyo under iyo midka taabanayo mid walba oo aad taabanayo iyo waxa imaan doona waa la arki doonaa laakiin adi mar walba gameka ciyaarayso isku day hadii aad lacag badan dhiganayso in gameka ka hore aad ogaato ana hadeertan laba mar ayaa sidan ku guuleysanaya tag win na leeyahay lacagteedu waa qaadanaya play again aan leenahay hadeertan waxa soo baxday tiro 5 ah tiradan 5 ah ee hadda soo baxday waxa lagu leeyahay hadda labada option ee noo soo baxday ayaa kala ah waa ay ka badan kartaa ama way la sameyn kartaa ama way ka yaraan kartaa ama way la sameyn kartaa soo anaga waxa leenahay way ka yaraan kartaa ama way la sameyn kartaa marka waxa soo baxay tira 4 ah hadana waxa lagu leeyahay way la ekaan kartaa ama way ka yaraan kartaa anaga waxaan leenahay way ka yaraan kartaa ama way la ekaan kartaa sababta hadda kuwan aad dooranay aad u doortay hadii muuqaalka bilow ilaa hadda ay la socoto way fahmi kartaa micnaha ayaa ah nambaradii hore ee aad dooranay dhamaantood waxay ahaayeen nambaro waaweyn soo nambarada hadda aad dooranay sababta wax walba kan ka yar u sii dooranay ayaa waxay ahayd in ciyaarihii hore aad ka warqabay mar walba ciyaarihii hore aad ka warqabto waxa aad u fududaanayso in geemanka soo socdo aad si fudud ku ogaato lacag badan hadii aad dhigatana aad si fudud lacag kaga sameeyso hadeertan waa gameka saddexaad oo isku xigo oo aan ka guuleysanayo ciyaartan ama gamekan waana 3 game oo waliba isku xiga walibana aan qaadanayo waxyaabo macquul ah oo guusheeda filan karto mar walba game aad galeysid hadii gameka laba option uu yahay gameka labada option sababaha lagu doortaa waxay tahay in aad ogaan kartid ama aad saadaalin kartid ama aad kalsooni badan ku qabi karto waxyaabo imaan kara laakiin gameka optionska badan oo aan lahayn fursado badan oo guuleed waxay ku horseedayaan qasaaro haddaba gamekan waxa rajeynaa in aad u fahantay sidoo kale hadeertan waxaan dhigi doonaa lacag ka badan si dhalinyaro fara badan ay wax iyaguna uga fahmaan hadeertan waxaa noola keenay tira ah ama way la ekaan kartaa ama way ka yaraan kartaa ama maxaa ahayd way la ekaan kartaa soo halkan waxaa ku qoran tira ah ama way ka badan kartaa ama maxaa ahayd way la siman kartaa halkan garan ay ku qoran tahay numberkan hadda yimaaday waa ay ka yaraan kartaa anaga hadeertan waxaan leenahay numberkan geeska ku qoran ama numberkan over or equal ah oo micnaheedu yahay numberkan way la mid noqon kartaa ama numberkan kale ee isna ah under ko kale inkastoo numberkan uu yahay number aad u badan hadii ahaan leed numberkan way ka yaraan kartaa ama way la ekaan kartaa aad u fudaaleed laakiin sababta lagu keenay ama lagu keen waayay way la ekaan kartaa ama way ka yaraan kartaa ayaa ah in labada marba aad guuleysanaysid numberkan uu yahay number weyn soo mar walba oo number weyn ay haysto numberada kale aad haysan ee qaybta hoose optionska aad dooran kartaa ayaa lagu keenaya marka anaga waxa taabanayna qaybtan underka ah ama qaybtan waa uu ka yaraan karaa hadda optionka labaad u gudubnay optionka labaad marka uu gudubto hadana waxa lagu leeyahay 4 iyo 2 lagu keenay waxa lagu leeyahay numberkan ma ka yaraan karaa ama ma la ekaan karaa oo hal meel ah iyo over oo micnaheedu yahay waa uu la ekaan karaa anaga waxa taabanayna numberkan ama waa uu ka yaraan karaa ama waa uu la ekaan karaa hadeertan sidan waxa ku arki kartaa inaan sida ku guuleysanay oo lacagteena aan sida ku qaadanay soo continue hadii aad hadin hore u sii wadi kartaa hadeertan anaga waxa ku guuleysanay lacagta aad dhigto oo 88 aheyd laba jibaarkeed oo yuan 176 aa u jeedo marka lacagta aan hadda ku guuleystay waxa arki kartaa optionska aa u maray iyo qaabka aa ku helay inay easy tahay gamekan dadka isku aragti ma ahan oo way kala aragti duwan yihiin qof walba qaab ciyaareedkiisa xirfadda uu ku ciyaarayo ay ku xiran tahay in gamekan uu lacag fara badan ka sameeyo ana hadeertan tirada ku guuleystay iyo tirada ku soo galay qiimaha lacageed ee aan haysto marka gameka soo galay iyo qiimaha lacagta hadda aan haysto dabcan farq weyn u dhaxeeyo qofka $100 ku soo galay hadeertan wuxuu haystaa lacag $300 ku dhow marka mar walba gameka aad maskax ku ciyaarayso kuna darayso gameka inaad ka warqabto dhigatana lacag yar kadibna marka aad fahanto gameka lacag badan aad dhiga karto adiga oo mar walba ku saleynayo ciyaarihii ka horeeyay ciyaartan wixii ku soo baxay mar walba waxa fiican game aad ciyaarayso inaad la socoto wax walba marka lagu soo bandhigayo hadda qaybtan hoose ee continue hadii aan taabano waxaan u gudbi doonaa step labaad oo x4 ah dabcan waa la afar jibaari doonaa lacagteena qof walba step kor oo u gudbi karaa step 4 hadii uu gudbo step 7 oo lacagta la 7 jibaari doona jiri doonto waxa jiri doonto 13 soddon waxaasi oo dhan meesha ay ku jiraan mid alaale mid ka arabtan waa ka dooran kartaa laakiin ani ahaan gamekan two optionska aan kula talinay gamekan waxa ugu fursadaha badan ama ugu faa'iidada badan ayaa ah in optionka koowaad oo kaliya ka gudubto lacag fiican aad dhigato kadibna aad qaadato sababtoo ah gamekan laba mar aad wax dooranaysaa
labada mar wax dooranayso laba option oo kaliya la soo bandhigi doonaa hadii step 4 u gudubto options lagu keenay aad u badan karaan soo ma ogaan kartid waxyaabaha hadhow heli doonto ama soo bixi doono marka waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanto game-kan sidoo kalena lacag far badan ka sameyn doonto marka hadii ay tahay daawashada kugu warayso channel-ka waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad channel subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto si uu u gaaro saaxiibo far badan oo channel-ka ku xiran muuqaalada aad rabto ama ku saabsan ama xog aad u baahan tahay inaad ka hesho application-nada kale ee lacagaha laga sameeyo website-yada wax walba waxaan rajeynayaa inaad qaybta hoose comment ku soo qorto waxaan rajeynayaa inaad si fudud kaaga caawiyo wax walba oo ku saabsan lacag sameyn marka hadii ay tahay daawashada kugu warayso channel-ka ha ilaawina muuqaalka like saarto channel-kana aad subscribe saarto waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan